Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Maanta muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay beeraha Soomaaliyeed qaabka loo dhaqdo. Soomaalida ma ka faa'iidaystaa beeraha qaabkay u dhaqdaan ama kama faa'iidaystaan? Maxaa cilado oo haysto beeraleyda Soomaaliyeed iyo dhibaatooyinka ay ka dhaxleen beeraha? Arrimahaasoo badan waa in la isweydiiyaa qaabka ay ugu baxi karaan. Dhowr siyaabood waa in la isweydiiyaa. Maanta waddankeena iyadoo kheyraad badan leh baa wadankii wax meelo kor laga keenaa oo suuqyada Soomaaliyeed ugu cariiriyay. Dadkii wax beera lahayna magaalooyinka bay kaamun qaxooti bay ku jiraan. Marka dhibaatooyinkaas qaabka loogu bixi lahaay qaab ugu fudud ee dowladda ee dadka shaqo abuur ugu sameyn lahayd. Maanta beeraleyda Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin shaqaalooyin. Ardayda Soomaaliyeed midka maanta jaamacadda ka soo baxay maanta wuxuu rabaa adiga markuu shaqo raadsanayo inuu ka bilaabo xafiis. Beeraleyda Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin shaqaalo qof wax soo bartay aqoon leh. Maanta dadka beeraleyda waxay u badan yihiin dad aqoonsan lahayn waxayna rabaan dad aqoon leh oo u shaqeeyo. Qaabkee la isku xiri karaa beeraleyda Soomaaliyeed iyo midka wax bartay waa in la isweydiiyaa. Hay'adaha beeraleyda waxay ku hayaan dhibaatooyin fara badan sababtoo ah qofka beeraleyda ah waxaa loo sameeyaa hay'adaha inay dadka u tagaan waxay ku dhahayaan waxaa lagu qoraa intaas oo lagu qoraa soo bax kasoo tag beerahaada meelaa lagu geynaa kaam ee qaxooti ah. Qofka beeraleyda wax soo saarka badnaa kaamka qaxootiga aa la geynaa bishii lacag yar oo sandareete ah aa loo qoraa oo u qaato qofkii dhan isoo aanan shaqeynin oo waxna aanan u sameynin oo bishii lacag yar oo helaa. In ka badanna wuxuu heli jiray markuu beertiisa tacbado waxyaalo aad u fara badan. Marka waa inaa waxyaalahaas looga baxaa. Sababta ciqaabooyinka laga dhaxlo waxay tahay suuqii oo badeecada Soomaaliyeed oo beeraleyda ka xirmaan dibadda wax badan laga soo dhoofiyo. Maanta supermarket dala tago qudaarta dhan lagu iibiyo hal qudaar oo dalka ka baxda laguma iibiyo. Qudaar dibadda laga keenay daraad ugu dambeysay wasaaradda beeraha iyo waxay tagtay garoonka diyaaradaha waxay arkeen qudaar iska dhaafay waxyaalaha ugu badan oo maalin daruuriga ah haddana iska dhaafay sanadkii iska dhaaf waxyaalaha quud daruuriga oo maalin walba la isticmaalo baa wadankii loo soo dhoofinaa. Marka waxyaalahaas si looga baxo oo dadka beeraleyda loo garab istaagi lahaa